ururka samafalka Soomaaliyeed ee Alpha Trust ayaa bustayaal joodariyo iyo bacaha roobka gaarsiiyay qaar kamid ah qoysaskii ka soo barakacay dagaalka magaalada Laascaanood. qaar kamid ah dadka la gaarsiiyay gurmadka taageerada ah ayaa u mahad celiyay ururka Alpha Trust waxaana hadaladoodii kamid ah ilaahay baa mahad leh mahad ilaahay baa leh marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda Alpha Trust ee qaxootiga Laascaanood u qaybiyay alaabta gogosha iyadoo waqti roobabow ah iyo waqti aad loo jilicsan yahay ay tahay waxay dhinaca dhigi lahaayeen iyo waxay korka iska saari lahaayeen iyo waxay huwan lahaayeenba ugu soo dadaalay oo u keenay awoodooda iyo ijtihaadkooda ugu soo dadaalay bimacna kalima waa wixii loogu baahi badnaa inay dhinaca dhulka dhigaan inay bustaahu wadaan inay bacda roobka ka galaan waa waxyaalihii ugu baahida badnaa dadkii qaxootiga ah ee Laascaanood ka soo qaxay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Alpha Trust hooyo waxaanu nahay dadkii Laascaanood ka soo barakacay firshaanta iyo bacaha iyo bustaha oo aad loogu baahnaa waxa kaloo jira barakacayaasha maanta ay wax siisay inay wax dambana ka rajeynayaan insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu dadkii Laascaanood ka soo qaxay arcadee u qaxay haddana ka soo qaxay baanu nahay waxaanu u mahad celinaynaa hay'adda bustayaasha iyo bacaha noo qaybisay waxaanu leenahay kuwa kalena na soo caawiyo haddii aan leenahay waxaanu ku boorinaynaa inay aad u mahadsan yihiin waxaanu kaloo ku boorinaynaa dadka kale ee iyaguna wax awoodi kara ee aan maanta ka qayb qaadan aan soo gelin inay dadka qaxootiga ee baahan ee dhibaatadu haysato ay u soo gurmadaan oo ay wixii ay u awoodi karaan ay soo gaarsiiyaan hal jazaa'u al-ihsaan ila al-ihsaan qofkii wanaag sameeya wanaag buu Ilaahay ka helayaa marka sidaas in loogu soo dadaalo oo cidii kale wax awoodi kartaana ay sidaas ugu soo dadaasho baanu iyagana ka codsanaynaa maahan markii ugu horeysay ee ururka Alpha Trust uu wax gaarsiiyo gobolka Sool iyadoo horay uu ururku magaalada Laascaanood uga fuliyay barnaamijyo samafal oo dhanka caafimaadka ah Cabdiqani Cabdilaahi magaalada Laascaanood